soo dhawaada channelkan Somali Bitcoin. Channelkan waxaan ka wada hadlaynaa dhinaca Bitcoin iyo cryptocurrency-ga maalin kasta xaggu marayo. Hadda channelka cusub tahay, like subscribe taabo si qofka loo arki karo videogan uu faa'iideysan karo. Aad ba mahadsantihiin. Maanta waa maalin kale waan ragnaa dhinaca Bitcoin-ka waan ragnaa xaggu marayo cryptocurrency-ga waa kan waxaan ragnaa Ethereum baa yara fiicnaaday laakiin wali wuxuu ku jira Bitcoin dagaal weyn ku jira waana wax la arkaa inuu wax kasta saaqali garoobayaan Bitcoin uu kacay hawshu meel fiican ma marayso taa waxa keenay ragii ruushka la oran jiray baa dadkii ku qaligareysiiyay wax la yiraahdo xagga saliidda xagga petrolka ay saaraan ee crude oil ka yiraahdo marka dadkii imka lacagtooda la baqayaan u badnaantood marka laabtii wax kasta ku qarigooda dhinaca Yurubka marka sheekadaasna waxay si yaraad keenaysaa dhinaca nolosha dhinaca Bitcoin-ka taa waxa keentay dadka marka lacagtooda waxay siinayaan wax kale siinayaan maaragtay marka imka dan eegno waa kuwa Bitcoin marka Ethereum Classic Silk Yearn wada engine maaragta way wada yara dhaceen waxa la filayaa inuu Bitcoin gaariyo ilaa 16,000 laakiin waxa isleeyahay inuu dagaalamayo dagaalku ku jiraya uu soo noolaan doona weekend laakiin deemka waxa wax temporary waa wax imka dhacay laakiin uu soo noolanaya uu saakacaya waqti mu baanta marka waxaan wada dhaafaan waxa la wada joojiyo uu soo noolan doona marka aan ku noqono bal maanta waxa aan akhrino warka cusub ee socda channelka dadku cusub tahay like subscribe taabo maalin kasta video cusub aan soo duubno ka sheekeyn dhinaca cryptocurrency-ga ma wada eegnayo CoinDesk waxay soo qortay waxay leedahay CoinDesk oo website-ka waaweyn oo ka hadlay dhinaca markasta Bitcoin-ka oo soo qoray waxay ku leedahay long term investors dadka ka fikiraya mustaqbalka hore ee investor-ka ay lacagta gelinaya Bitcoin waliba bullish waxay ka fikirayaan inuu Bitcoin saakici doono sanadlan doono dhinaca mustaqbalka marka the decline despite generally bleak macroeconomic outlook with some models suggest that the world's largest cryptocurrency could be undervalued marka waxay filayaan waa undervalued price-kan uu qiimo maaha dad waxay isleeyihiin oo meesha investors oo lacagta geliya waxay isleeyihiin inuu ka qaali gareysan yahay oo ka weeye intan Bitcoin-ka marka the poll multiple to hawliyalkan tool that measures 1 year's revenue growth among Bitcoin miners marka la revenue lacagta saagala korga Bitcoin-ka miner gal Bitcoin saara lacagtoodu imika way sii kordhay waxba kordhay 5% sanadkan marka waxana wax koraya ama wax kasta qal garoobaan oo siyaad kaan laakiin maalin kasta Bitcoin uu popular noqonaya uu sii kordhaya waata marka waxtan waxay sheegaysaa indicator-kan wuxuu sheegay inuu Bitcoin undervalued inuu price-kan inuu ka qaali gareysan yahay inuu dhacay oo aad u dhacay taana waxay keenaysaa waxa xagga adduunka marayo marka noqoto dhinaca business-ka dhinaca lacagta marka waa very undervalued in that prospect marka waxa lagu leeyahay long term investors qof ka fikir dhinaca mustaqbalka waa wax fiican baa leegtahay oo wuxuu macaash doona inuu ka fikirayo xag hore aan ka fikirin maanta bariis leeyahay 3 sano iyo 2 sano ba 5 sano buu ka fikirayo ma luusi dhinaca marka noqoto xaggaas waxaan ku noqon chat-kii maanta haddana eegno xagga hawsha marayso like subscribe taabo dadka ku cusubta meesha si qof kale uga faa'iideysan karo kan waxba kuma soo dareen haddaan ragnay oo yaraan markuu u darno wuxuu galayaa 16,000 oo 800 buu noqonayaa markuu ugu sareysana wuxuu gaaray 17,000 ka hawsha kuma soo darayso Bitcoin dagaal ku jira difaac ku jira muddo intaan ka dhaco oo inta soo joogiya markasta marka haddaan ayno shalay haddaan ayno oo maanta markuu sareynta suuha markuu goosay inta suuha marka waxaan wax ka soo dareema maaha oo markaas uu si fiicnaanaya mar hadduu yar u dhaco soo noolaanaya qaar ba ka fikiray inuu zero noqdo zero dhaco laakiin saddex wax ma jirto imika taa ma filayso marka laakiin marka uu sii kordhaya si adkaanaya waa the strongest cryptocurrency lagu leeyahay the strong waa godfather-ka Bitcoin marka anu saan filayo anu xasla bisha August bil fiican noqon doonta laakiin anu xalay September way rahaab anu xasla September way in yar buu rakacaya meelaha 19 laga gaaraya laakiin marka noqoto October iyo November buu aad u kacaya oo sodonay gaariya Bitcoin taasaan filayaa anigu taa kadibna sanadka cusub markuu bilaamo uu kacaya 2023-ga intaan uu kordhaya taa kadib laakiin imika marka waxaan is dhaafaan oo dagaaladan ay joogsadaan oo la wada heshiiyo Bitcoin-ka investment-ku aad u isbedelaya marka qofku inuu ka faa'iideysto inta waxaan wali joogan yihiin saan sheegay like subscribe taabo dad meesha ku cusub tahay maalin kasta video cusub aan soo duubnaa
aan dee dubnayo dadka wana is wadageysin xagga wax marayaan dadku ay kala faa'iidaystaan. Haye waa nabri waa aad wanaagsantiin.